وزاري هوري الصومالي حسن علي خير الأوان أسوق خطبة جديدة وحو شيء إن qaar ka mid ah wadadii deeq-bixiyaasha ay lacagii joojiyeen sabab la xiriir arrimaha doorashada oo musuqmaasuq wax laga baqayo marka wadamo lacagii la bixinayay joojiye ma jiraan sabab la xiriir arrimaha doorashada oo deeqihii kabka miisaaniyadda ma jiraan haba yaraadaan ma jiraan eeg deeqaha lacagaha la nasiyo waa meesha saddex meelood bay ka yimaadaan iyada ka yimaadaan African Development Bank ka yimaadaan World Bank ka yimaadaan World Bank haddana idinka bilaabo already maalintii deyn cafida la sameynayay 450 milyan oo Soomaaliya siiyeen 450 milyan ayay siiyeen haddana muxuu ahaa June iyo July 550 milyan bay siiyeen ma ayaana khalad samaynin waxay 45 milyan iyo 50 milyan 100 milyan ayay siiyeen hadda mid kala filayna oo kabka miisaaniyadda oo dalkoo dhan ya 45 milyan iyo 50 milyan 100 milyan bay siiyeen waxay dhimayna ma jirto hadda mid kala filayna mid wal oo lagu siyaabo wuxuu leeyahay intaasoo condition ka soo baxay hadda processkii baan ku jiraa ka doonayna in beginning of the year sanadku markuu bilaabana la siiyo conditionskii baan ku jiraa beritaan zoom galaynaa kaa marka la dhameeyana iyadana waa filaynaa iyuda 100 milyan oo beginning siiyaan barbaa wali harsan ayaguna bisha soo socota bilowgeeda ayay bixinay wax joojiyeen ma jiraan waxa weeyaan marba saan isku la falgalo ayuu bay tahay waxa ku saabsan yani isdoorto si fiican isku doorto wax meesha ku jirto halkan maalintii dhibadan ku jiray waa la yiri laakiin lacagta ay isku xidhna maarta iyo sida ku socdaan African Development Bank lacagta way taalaaba yani waxa weeye arrin coronavirus iyo la xidhiidha ayaguna waxay joojiyeen anigu sheekada meel laga keenay runtii ma garanayo sheekada meel laga keenay waa iska un malaawaalka badan iska socda maarta ya aniga afkayga ka qaad waxaan ku sheegaya waxa weeye sida aan u socono haddaan istabci weyno lugaa iska qaniin weyno si fiican baa loo socdaa wax wanaagsan waa la gaaray qorshe fog ma jiraan marka su'aasha aan qorshaha fog ka warramo qorshaha wasaaradda qorsheynta ayaa ku shuqul leh ka fog oo dhismaha waddanka iyo National Development Plan ayaa arrintaa ka shaqeeya aniga qorshahayga kaa ku xidhan waxa weeyaan cashuurta horta dad waliba wuxuu faa'iido ku leeyahay oo ku muuqan karaa waxa weeye wuxuu isagu qabsado dad kale ugu qabtaan wuxuu xataa dad kale hadday ku qabanayaan inay low ku noqoto iska bixiso sidaasaa madaxaagu sareeyeen ya marka aniga qorshahaygu waxa weeye in cashuuraheennu markaa GDP-ga u eegto GDP-ga ka hadlaysay waa 2 iyo 3% weeye normally adduunka waa 5 iyo 16% weeye waad arki kartaa markaa intaan socon karno waxaa jira meelo fara badan oo cashuur waajib ku tahay weli la bixin waxaa jira meelo badan oo cashuur waajib ku tahay oo in yar oo tookana laga qaado ayaa jira dadku cashuuraha way iloobeen in la baraa loo baahan yahay marka aniga mabda'aygu waxa weeyaan dalkan 2 years down the road 24 bilood marka la joogo inuu kharashkiisa ka soo bixin karo oo dadkan employ garayn karo